waxaan ku suganahay suuq hoose oo maanta shaqaaqa ka dhacday oo jeedaan hadee baabuurtiinka meel walba ku xiran waxa jooga gaarigiisa waa kana taliye ciidanka daraawishta Puntland Sicdeere gudoomiyaha gobolka Xasan Maxamed Khaliifo kaasa saaka kaligiisa soo lugeynaya buu galay xabada hadda dhinacaas ku wareegaas mar hadda ila socdo iyo cadeed karaaye marka waa u jeedaa dhinacaas suuq waa ka xiran yahay halkaas oo u jeedaan waxa ku go'an baabuurta dowladda federaalka ciidankeedii dhinacaana xaggaasna sidoo kale waxa ku go'an ii sheegeen cabdibareer baa ku go'an suuquna waa xiran yahay meel walbana ciidan baa taagan marka waxay xaaladdu u badan tahay hadda waxa lagu jiraa baaritaanka ciidii xabadda riday waxa leeyahay baqaar waxa laga soo riday galmudug nin baa ku dhintay xabaduna cabaar bay socotay marka xabaddu cabaar socotay kadib baa waxa yimid ciidankan dowladda federaalka waxaan hogaaminayay General Sicdeere ayaguna waa xireen xabadiina hadda waa istaagtay haddana waxa lagu mashquulsan yahay oo kuwaana gudiyadii ganacsatadii hadaashaas ay taagan gudoomiyaha gobolkan oo kaasa saaka kaligiisa soo lugeynaya uu galay meesha ninka badan maahan Xasan Maxamed Khaliif waa nabadda gaalkaayo ninka ku taagan tahay oo u jeedaan baqaarada saaka kaligiisa waa lagu galay dad baa ka soo celiyay markii dambe ciidanka intiisa imaana sida uu soo horeeyay waana nin ku bixiya waa nin nabadda ku bixiya waqti badan waxa kaloo jiray in marar badan maalintii shirka laga sheegay dad badan hortiisa oo jiray marka cadeed maxaa u doontay cadeed hay ka maanta dagaalka qolada galmudug nin ganacsatada ay meesha maray xabad ku dhuftay marka xabadii hadda kiis baa la baariyaa ciidamada isku dhafka yimid taliye ciidamada isku dhafkan waa jooga Sicdeere oo sax xagaasna waxa uu hadda waxa ka socda shirki in la wada fariistaan ganacsatada isku keeno gudoomiyaha hadda hawsha ku jira waa kaligiis baa wax dowladda Puntland hadda ka shaqeynaya hadda ka jooga marka waa nin ay dhabka tahay ii sheegeen gudoomiyaha haddana waxaan sugnaa dhinaca kale ee galmudug maadaama aan iyaga sugnaa hadda waqti dheerna nagu qaaday sugistooda صح gudoomiyaha gobolka waxa weeye waa nin waxa weeye waqti badan ciidanna soo maray tariigaasna ana gaban geesinimada moogtaa waxa weeye cisita nafsiga ku siisaa sharafina ku noolaatid marka qof baqayana hadii waxa weeye haddana waxa soo socda u jeedaan galmudug hadday timid waxa weeye xagaasaan xayir maxay qabanaya hadda yimaadeen dhinacaas waa xiranta ilaa geeskaas waxa weeye baqaarkaas macna ka jibiyay xaaladdu taasa dhinacaas oo ka xiraya suuq dhinacana ka xiraya baqaaradina kuwasa arkana waa kana حبد واوجد سوق إيدا حبد سوق شيء واوجد منصور حبد سوق شيء وحرية هذا عرض ما أنتوا قلت حبدها وجدان هذا ديالك هذا دعية وحش السعودية إلا يهوسع كل واد 6 ساعة عرضنا مركب حوي ما أنت توحوي وعدك تعي إلى أي وحوي خير كل ما يلاقي سي دب على أهين نودق على الكعية وحن كرين ده عادي قول أنا دبك إن نودق على الكعية قول أنا دبك عادي ترى وحوي أنا هذا قديم يا وحوي إذا ما بقول شيء نسا هذه لفتي وحوي نلعب تامركز قدومي إيش قدومي وكنا وحيمد ما قدومي ninkaas waxaan malaynayaa inuu yahay ninkaas hadda yimid galmudug ka socda waa qeyrinayaa gacmo tagtay duqi magaalada waxa yimid duqi magaalada galmudug ninka magaciisa macaaniyo ma aqaane xirsi yusuf bare adaa yaqaano kaasa waa ninka koofiyadda qaba luuqaasa la gala xagga waxa ku jira Sicdeeriyo halka kale waxa ka soo jeeda gaari kale dowladda federaalka halka gaari kale halkaas meel walba waxa taagan waxa weeye isku dhafkiyaan soo galay baqaarada marka waxa weeye anagina ii sheedaa ma maynaya jimcaha wanaagsan baan leeyahay
kuma faraxsanin jawiga gaalkacyo oo mar walba dagaalka ah laakiin saadii cabdigan waxaa la yiri fidnati macabbil amta sida ku dhamaato waa adagta hawshaas waxay kula muuqataa markaa ilaahay inaga qabojiyaan insha Allah inama jecla sidoo kale aan rajaynayaa in ilaahay naga qabojiyo fidnadan waxa weeye ma dhamaato fidno kale jimca kacday waxa weeye nimankan walaalaheega muslimka waxa weeye saasaan rajaynaa maanta suuq waa xiray hadda meesha waxa jooga oo ciidan annaguna hadda waxa weeye dadka shacabka aduu hadda meel walbana waa xiran tahay askarina ma tiide see usoo gasho carradaan waxa weeye muse dagaalka ku jira ama caadi isku cadayso anigu dagaalka ma jiro nabadoon ahaan baan aniga isoo kaxay dadweynaha isoo kaxay ma garata wakaa marka صح ما شاء الله dagaalna kuma jiro hubna ma waa ujeedaan hadee dhinaca noo bilaabanaya cabaadka bacdi dhinacaas kale shirkigaas waa ujeedaan hadda gadaashooda waxa taagan baabuurtii oo dhan marka odayaal iyo waxa dad maaragtay bakaaradooda waargeysanayay waa ujeednaa marka xaaladdu siday noqoto waa arkaynaa ku dhamaato